social media wareegaysa isku haysteen oo aniga iga hadlayso oo ku saabsan sababta uu u baaqday programka lagu yiraahdo Somali International Fashion Show aniga uga baaqday waxaan rabaa inaan sida saxda ah oo Ilaahay loo geeyay inaan uga hadlo oo aan ku jirin maxaa la isha been aan ku jirin maxaa la isha daboolnaan kale horta daa sharaxa programkan sababta aan u imid horta waxay invite gareyn ama casuumaad soo taqaanaa bal isoo casuumadan ku imaaday oo marka laga hadlaayo dad baa ka soo hadlay lacag buu qaatay markaasuu programkan kama qayb galin arrinta lacagta ah wax la yiraahdo lacag horta marka hore kuma imaan waxaan ku imaaday casuumaad sharaf taas halkaas number 1 tan labaad maxaa la ii sheegay horta waxaan rabaa inaan saddex u kala dhigo waxaan saddex ugu kala dhigaa tan koowaad aan rabaa inaan ka hadlo horta waxa la yiri qofku markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa oo markuu cunto cuno ku dhargaa hore ugu sii socdaa laakiin markuu qofka qalbiga ka baahan yahay qofka qalbiga ka baahan waa wax adduunka ugu daran marka qofku markuu qalbiga ka baahan yahay markuu maanta hadda markuu duhurnimada qadeeyo waa inuu ka fikiraa maxaa hadda casirka asaliye ka dhigan lahayd maxaad ku casheen lahayd caawda maxaa biri ku quraacan lahayd maxaad ku qadin lahayd maxaa habeenada ku casheen lahayd marka intaas si uu u helo waa inuu been sheegaa waa inuu wuxuu doono ku hadlaa waa inuu wuxuu soo hubiyay ku hadlaa inta ka soo hadashay programkan hadda baaqashada programkan aan ka baaqday qof ku soo hadla ma jiro wax runa qof ku soo hadlay wax sax maanta oo la hubay wax meesha ka dhacay qof ku soo hadla horta ma jiro marka waxaan leeyahay tan number 1 waxa uga baxaya qofku markuu caloosha ka baahan yahay uu dhargi karaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargi karo waa inuu wuxuu doono sameeyaa been iyo wuxuu doono taas halkaas uga baxay tan labaad aan rabaa markii aan galo tan labaad waxaan uga hadlayaa arrinta sida saxda ah ee khilaafka ka imaaday sababtay ku dhacday aan ka hadlayo horta number 1 aniga waxa ii soo diray rag baa casuumaad ii soo diray hadal rageed baan ku soo baxay go'aan rageed baan ku soo baxay go'aan rageed aan meeshan ku imaaday nagoo imaanay hotelka degan markii la gaaray xilliga habeenkii inaan isdiyaarino ahayd hoos aan u degano hotelka aan deganaa la kaliya xaflad lagu dhigay marka hotelka inaan hoos u degano xilliga laga rabay inaan hoos u degano ka qayb galno programka baan gabar imaaday gudaha loogu soo gashay markaas waxay dhahday salaamu calaykum iyadoo gabadhii muransan markaas waxay dhahday waxaan rabaa waxaan gabadhii iyadoo waxaan u soo invite gareeyay dayax inuu u heeso nin athletic madax ah oo meeshan joogo oo ka soo qayb gala programka waxay tiri waxaan u soo casuumay inuu ninkaas aniga igu heeso aniga fahmi waay hadalkii wiilasha isu casuumay kamid ah banaanka joogeen aniga gudaha ku jiro qolka ayaga markaa meesha ka banaanka ah ku murmaayeen ayaga murmeen marka aniga ma galinba waa hawsha dhimaystaan hoos aan u degnay marka aan hoos u degnay la rabay xafladii nooga dhiman tahay albaabka bis inaan ka galno meesha dadku isku diyaarin lahaayeen dadka model filibsanay wixii oo dhan marka taaganahay ay gabadha tan igu soo laabtay maadaama xaaskii meesha isla taagan marka noo maad waxay tiri salaamu calaykum haddii ay ka qayb galayso programka waxaa shardi ah inaad telefishin bay sheegto magaciisa aanu ma aqaano laakiin telefishin kaasna inaad berito waraysi siiso waxaan dhahay excuse me sister maxaa u baahan tahay yaana tahay intaas ka timid intaas ka socota waxay tiri qofka programkan watay gabadha programkan dhan wadatay waa aniga marka aniga hadal ma furin ma xiri waan ka anagoo yani jawaabteeda diidan bay isku imaadeen ayaga marka isku imaayay dadka programka watay ee ay isu casuumtay ayaga iskalaafeen ayaga dagaaleen waa baxnay korfuulnay markaan korfuulnay haddana waa noola imaaday waxaa la yiri maadaama wiilkii adnaan la dhahaan isu casuumay adnaankii ay imaadeen wuxuu dhahay madaxayga fiir wajigayga fiir madama khilaaf xaggaas ah ma dhici doono markaan soo laabanay anagoo hotelka u baahan haddana mar labaad inaan galno baa wiilashii ka mid ahaa ayagana programkii baa ani gabadhii xaggeeda jiray oo haddana ii sheegaan inay gabadha iyagu islahaayeen marka xaggeega su'aal in la iga raali ahaa waxaan u baahanahay inaan program ka qayb galo marka hay ii soo dhawaaneen oo xaggaas iga tag wiilkii markaas maxaa la ii sheegay anaga iskhilaafnay iyo wiilkii kale aniga soo dejiyaa isu aamurmeen markii murankiiba wuxuu ku dhamaaday inay iyagu intuu soo baxaan iskal isku dalbadaan ay isu dagaalaan programka meesha ku dhamaaday qaybta labaad xaggaas uga baxay marka programka laga hadlaayo waxaan rabaa markii inaan midda saddexaad u gudbo oo beenta ay dadka magaalada wareejinayaan iyo social media YouTube meel walba ay wadaan waxaan rabaa inaan kaas sax marka uga hadlo ee dadku ka hadlayaan waa arrinta farxiyo saddexaad ku soo gabagabeyn doona horta farxiyo waxay kaga sheegayaan horta habeenkii ilaahay baa ila ogiyay rasuulkiisa wax beenan kuma daraayo farxiyo inta aniga sawirka ila galaysay
iyada inta soo kala galaysa iyadaaba iga badneen ba ani oo qofba ani ima rabin ba iyada dadku dhan ayada soo galayeen oo iyada famous kale ahayd so waxay tiraahdeen gabar baa intay dayax u imaaday ay tiri sawir baa kula galay wuxuu yiri dayax inta markuu hore farxiyo intay ka soo saxqaaday horta maanyaradaas iyo aqliyaradaas iyo fudeedkaas iyo hadal daciifnaantaas qof ay ka muuqato oo dhashay oo lagu yaqaan Ilaahay kama dhigin ummi tan labaad marka arinta farxiyo ka hadlaysaan farxiyo kalsoonida ku jirto ma aha meel inta la yimaado gabartiida sawir aan kula galo qof maxaa la isha ka soo faxqada kalsooni daradaasna ma haysan naga farxiyo waa boqorad sidii boqoradii kale u nooshahay ragga intay meelaha soo fariistaan arinta farxiyo ka hadlaayo وأنا حشون قبل دماشيد وأنا حدلين وأنا إني كهلا إني قلت هاي كهلايو فرحيو ورج يعني رجع سكهلايو